Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahey dhammaantiin kusoo dhawaada Khadra Discipline Channel iyo video kale cusub. Videogan waxaan idinku soo gudbin doonaa 5 qodob haddii aad ku celceliso muddo 7 maalmood aad noloshaada ku arki doontid isbeddel weyn. Qodobka koowaad, kula hadal naftaada maalin walba. Waxaan nahay kan ugu fiican. Weligaa ma ku dhiiratay inaad naftaada ereyo wanaagsan kula hadasho mise dadka kale ayaad ka sugtaa inay kugula hadlaan? Jooji inaad naftaada la barbar dhigto dadka kale, sababtoo ah sida aad tahay ayaad ku tahay qofka ugu wanaagsan. Marka bilow inaad naftaada kula hadasho inaad tahay qofka ugu wanaagsan. Subax kastana ku dheh naftaada, aragneh isbeddelka ku yimaada noloshaada. Qodobka labaad, dheh waan awoodaa, waana awoodaa inaan sameeyo. Haddaad riyo leedahay, haddii riyadaadu tahay inaad noqoto millionaire 5 sano soo socoto, waxaad yeelan doontaa 2 cod oo madaxaaga ama maskaxdaada ku jira oo ku kala hirdami doona. Codka koowaad wuxuu kaa dhaadhicin doonaa oo kuu sheegi doonaa inaadan awoodin, ma tihid qof u qalma, ma lihid xoolo iyo maalgelin, ama uma muuqatid mid u qalma booskaas. Si kastaba ha ahaatee, codka labaad ee kuu sheegaya inaad haysatid awoodda aad ku samayn karto hididiilada iyo himilada ku gelinaya waa codka ay tahay inaad dhegaysatid aadna aamintid. Codka negatiifka wuu yaraanayaa, wuuna wiiqayaa. Waxaad u baahan tahay mar walba marka aad dareentid inaad naftaada u sheegto inaad awoodid. Xusuusnow inaad samayn karto wax walba, maskaxdaadana ka dhaadhiciso, laakiin waxay u baahan tahay ficil, adkaysi iyo inaad wajahdo cabsidaada. Qodobka saddexaad, dheh Allah ayaa ila jira mar walba. Ilaahayna wax walba wuu samayn karaa, ee adiga samee waxaad awoodo. Ilaahayna wuxuu kaa saacidayaa wax walba oo aadan awoodin, adigoo Allah la kaashanaya baryo iyo malo wanaagsan, siduu suubanaheena sallallahu calayhi wasallam inoo sheegay xadiisu qudsigii, ana cinda dhanna xusna cabdi bi, buu Allah subxaana watacaala yidhi, malaha uu addoonkayga iga fisho ayaan siinayaa. Marka mar walba malo wanaagsan oo qurux badan rabbigaa ka filo. Qodobka afraad, waxaan ahay mid guulaystay. Waxaan ahay mid guulaysta. Waxaad samaysataa dabeecad ama caado aad kula hadlayso naftaada, aad ka dhaadhicinaysid inaad tahay guulayste. Meel walba dheh naftaada, waxaan ahay mid guulaystay. Meel walba aan tago waxaan noqon doonaa guulayste. Guushu waxay la socotaa dhiigayga. Waxaan u dhashay inaan noqdo mid guulaysta, aana dhinto anigoo horyaal ah. Guul darana ma ahan inaan u dooro noloshayda. Qodobka 5 ayaan kusoo gabagabaynayo, ku bilow maalintaada inaad tidhaahdid maanta waa maalintaydii, maanta waa maalintayda. Wax walboo shalay dhacay dib uma arko. Ilaahay wuxuu i siiyey fursad cusub iyo maalin cusub oo kale oo iftiimaysa. Maantay ma tihid qofkii aad shalay ahayd. Jooji inaad la noolaato wixii hore. Xoogga saar mustaqbalkaaga, li'anna mustaqbalkaagu wuu qurux badnaan doonaa ma aadan arag maalmihii ugu fiicnaa noloshaada. Soo toos adigoo dhoola cadaynaya, kuna dheh naftaada maanta waa maalintaydii. Aad ayaad u mahadsantihiin. Video kale oo xiiso badan ku kulmi doono. Waxaan idinka tegayaa fi amaanillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.